Ergadii labada bilood ee Bahakheer ee ka qayb gashay shirkii nabadeynta ee ka dhacay caasimadda dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si meeqaan sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Saxdheer ee ka tirsan gobolka Sool halkaas oo ku macsuubay garaadka guud ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo gobolka Doono waxaana ka qayb qaatay soo dhaweynta ergada labada bilood bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer Saxdheer iyo garaadka guud iyagoo kaga hortagay meel ka baxsan magaalada Saxdheer waxaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Saxdheer waxaana xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay hoyga uu ka degan yahay garaadku magaalada Saxdheer waxa ugu horay halka ka hadlay Sheekh Maxamuud Xalli saddex gole waxaan ahayn khayr male baa Ilaahay yiri bani aadamku inta waa shiraya muslim iyo gaal shirka la shirayo saddex shir baa ugu khayr badan baa Ilaahay yiri gole iyo shir laga arinsanayo islaax iyo heshiisiin iyo khayr iyo maslaxad inuu goluhu yahay iyo golo wanaag iyo waxtar iyo wax wacan la isu sheegayo oo la isku wacyi gelinayo oo wax khayr ah oo ama adduunka ku wacan ama aakhira ku wacan la isugu sheegayo iyo inuu goluhu yahay golo sadaqad la isfarayo oo la isleeyahay caawimid iyo waxtar iyo deeq la isu sheegayo saddexda gole dadku waa soo buuxiyaan laakiin aayadda gabagabadeeda si gaar ah alle u tilmaamo wuxuu yiri qofka niyad wanaagsan oo alla hortiyo daacadnimo ah golayaasha khayrka qaba kala qayb gala oo uurkiisa iyo carabkiisu si wanaagsan uga howlgalaan ajar weyn baan siin doonaa ajarkaasuna waa jannada weyn sidoo kale waxa halka ka hadlay labada jiif caaqil ee labada bilood ee wanaaggan isugu keenay iyo madashan quduxda badan baa mahad leh marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay in abuurtay oo insaan inaga dhigay oo muslim inaga dhigay baan mahad kuwaad leh waxaan kaloo mahadnaqaynaa alla barigan iyo gogashan garaadku inoo dhigay garaajama garaacali isagana waxaan u mahadnaqaynaa in Ilaahay garaadki jiray Ilaahay ka dhigo aan ka hadlayaa kaliya waxa weeye muhiimadu waa nabad diyaar baan u nahay kii aan isneenahay waa xumaynayaan baan sii deynayn kii aan leenahay waxba ka qabanayaan baan soo dhaweynaynaa idinka dawladana waxaan idinka bariyaynaa wixii aan inta ilaa Saxdheer ilaa dharkayn ilaa kor wixii naga xumaynaya fartaan idinka saaraynaa naga qabta waxaan u mahadcelinaynaa reer Saxdheer oo yiri nalaba sheegi karin yiri garaadka maanta way idin sheegay idinku maxba ma idin sheegsan waxaan idinku sheegna ma idin qaban garaadkuna way naga dhaxeeya waxa halka ka hadlay xubno kamid ah qurba joogta labada bilood jaamac garaad cali garaad jaamac oo madashan quruxda badan dadkan isugu yeeray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii nabadii muddada badan laga soo sheekeeyay ama muddada soo martay wixii ay ahayd badde horaa looga hadlay oo ragii iga horeeyaa ka hadlay hadday ahayd madaxweynaha kilinka ismaamulka Soomaalida hadday ahayd garaadadii iyo suldaamadii iyo ragii mataqaanaa ismada ahaa uqaashii dadkii kale ee faraha badnaa ee shacabka ahaa ee ka qayb galay intaba horaa loo xusay waxaan leeyahay Ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo kale waxa dhanka telefoonka kaga soo qayb galay garaadka guud ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya garaad kulmiye garaad Maxamed iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah ismada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ugu dambeyntii waxa halka ka hadlay garaadka guud ee gobolada Sool, Sanaag iyo gobolka casuumay ergada labada bilood iyo mas'uuli ka socota dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya isugu keenay alla barigan inoo ajiibay allahaas mahad leh hadda maanteed baynu celinaynaa kana baryaynaa inta inoo harsan inuu inoo sahlo insha Allah taala oo inoo fududeeyo oo wixii xumaaday inoo sameeyo insha Allah taala ilaahay saasaynu ka baryaynaa alla barigan iyo casuumadan
ilaahay dukuuro yahay waxay ahayd mid aynu ilaahay ku weydiisanayno umuurihii wanaagsanaaye nabadgelyada inuu inoogu adkeeyo oo inoogu dhammaystiro oo inoogu furfuro oo bulshada isdhexgalkeedii kow ka ah gogol iyo allabari aynu ilaahay taa ku weydiisanayno bidaaye iyo bilow aynu ka dhiganayno yay ahayd tarabi Somali News magaalada Saxdheer.